bisha Oktoobar 30keeda waa maalinka laga codayn doono gobolka Banaadir oo shacbiga Soomaaliyeed ay aadi doonaan inay u dareeraan inay doortaan madaxdooda golaha deegaanka insha Allah tacaala iyo duqa magaalada Muqdisho waxa kaloo good news ah oo arrin lagu farxo ah in maanta Soomaaliya min maamulka cusub ee waqooyi bari degmooyinkiisa ilaa iyo degmada Bakool ee liida Xudur maanta waxaa socota diiwaangelintii dadweynaha oo diyaar ku ahaa inay golahooda deegaanka doortaan hadda waxaan ka bilaabi doonaa golaha deegaanka oo aan rabno inaan dhamaystirno insha Allah tacaala hadafkeenu wuxuu ahaa inaan 812 oo qof aan diiwaan gelino waxa aad war loogu farxaa ah in dad ku dhow 1 milyan maanta ay diiwaan gashan yihiin taasoo muujinaysa in shacbiga ku nool dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Banaadir inay diyaar u yihiin in codkooda la maqlo bishaan 7/27keeda waxaan shaacin doonaa listi ku meel gaarka ahaa oo ahaa dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee aan diiwaan gelinay ee ku dhow 1 milyan ayaan shaacin doonaa insha Allah tacaala inaan soo dhijino oo shaacino